xajaaj wiilkii markuu intii dhameeyey buu su'aal weydiiyey wuxuu yidhi waxaad ii sheegtaa qof laga abuuray hawada iyo qof lagu badbaadiyey hawo iyo qof hawo lagu dilay wiilkii yaraa wuxuu yidhi ruuxa hawada laga abuuray waa nebi ciise calayhi salaam oo neef baa laga abuuray ruuxa hawada lagu badbaadiyeyna waa nebi sulaymaan oo dabayl iyo waxbaa u shaqayn jiro uu ku badbaadi jiray ruuxa hawada lagu dilayna qolada hawada lagu baabi'iyeyna waa qowmu caado waxaa lagu dilay iyaguna hawadii iyo dabayshii baa lagu halaagay xajaaj wuxuu yidhi waxaad ii sheegtaa ruux laga abuuray geed naf geed laga abuuray iyo ruux geed lagu dilay iyo ruux geed lagu badbaadiyey intuba ii sheeg wiilkii yaraa wuxuu yidhi waxaa geed laga sameeyo naf ahoo geed laga abuuray ushii nebi muuse calayhi salaam markii ay maska isu beddeshay ayadoo geed ka samaysan bay mas isu beddeshay haddana ruuxa geedka ilaahay uu ku badbaadiyeen waa nebi nuuxoo markii dhulkii cirka biyaha ka yimaadeen dooni geed ka samaysan baa ilaahay ku badbaadiyey ruuxa geedka lagu dilayna waa nebi zakariya oo dadkiisu ay ku dileen xajaaj wuxuu yidhi waxaad ii sheegtaa ruux biyo laga abuuray ruux biyo lagu badbaadiyey dhexdooda iyo ruux biyo lagu halaagay wuxuu yidhi wiilkii yaraa waxaa biyo laga abuuray aadam calayhi salaam waxaa biyo lagu badbaadiyey nebi muuse oo baddi ka gudbay waxaa biyaha lagu dilayna fircawn iyo qowmkiisa xajaaj wuxuu yidhi waxaad ii sheegtaa wax qof naarta laga abuuray iyo qof naar laga badbaadiyey wiilku wuxuu yidhi naar waxaa laga abuuray ibliis naarna waxaa laga badbaadiyey nebi ibraahim markii lagu riday godkii dabka ahaa xajaaj wuxuu yidhi marka wiilkii yaraa buu su'aal kale weyddiiyo waxa uu yidhi waxaad ii sheegtaa buu yidhi webiyada jannada iyo tiradooda ii sheeg wiilkii yaraa wuxuu yidhi webiyada jannada mara aad bay u fara badan yihiin oo tiradooda ilaahay subxaanahu wa tacaala unbaa garan kara soo ilaahay ma dhihin buu yidhi مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ilaahay sooma dhihin jannada waxaa ku jiro webiyaal biyo aan isbeddelaynin webiyaal caana aan dhadhankoodu beddelmaynin iyo waxaa ku jiro webiyaal khamri oo qofka caba qolada cabta ay dhadhansanayso iyo webiyaal malab ahoo saafiyaal ah ayaa ku jira soo ilaahay subxaanahu wa tacaala ma uusan dhihin markaasuu wiilkii yaraa wuxuu yidhi dhammaantood buu yidhi webiyaasha aad arkayso hal meel bay ka soo wada burqadaan iyagoo caano iyo biyo iyo khamri iyo muxuu ahaa malab isla ah bay haddana hal meel ka soo burqadaan iskumana darsamaan buu yidhioo biyihii iyo caanihii baa istaabta lama dhahayo wuxuu yidhi mid la mid ah webiyaasha iyadu sidaa ahna kuwa la mid ah adduunyada ayaa laga helaa oo madaxa bini'aadamka ayaa laga helaa buu yidhi wiilkii yaraa wuxuu yidhi webina dhadhankiisa wuxuu yidhi waa dhanaan webina dhadhankiisu waa kharaar webina dhadhankiisu wuu mac yahay haddana webiyada iyaga ah iskuma darsamaan oo wuxuu ula jeedaa isha biyaha ka soo baxo ilintu waa dhanaan buu yidhi dhegta dhukayga iyo malaxda ka soo baxdana waa kharaar afka candhuufta ka soo baxdana waa macaan saddexduna madaxii bay ka soo baxaan haddana iskuma darsamaan xajaaj wuxuu yidhi ahlu jannuhu way cunaan way cabbaan mana saxaroodaan ee wax la mid ah ahlu jannaha ma laga helaa adduunyada ruux intuu cuno cabo aan saxaroon wiilkii yaraa wuxuu yidhi haa waa uurku jidhka caloosha hooyada ku jiro ubadka yar waxbuu cunaa waxbuuna cabaa mana haddana caloosha hooyada ku dhex saxaroonayo xajaaj wuxuu yidhi waxaad sheegtaa buu yidhi dhiiggii ugu horreeyo adduunyada ku dhibcay markii ilaahay uu aadam iyo abuurayba dhiigga ugu horreeyo dhulka ku dhibcay ma sheegi kartaa markaasuu wiilkii wuxuu yidhi haa waa dhiiggii xaawo ka yimid xaydka ahaa caadadii kaa ayaa ugu horreeyey wax dhiig ah oo dhulka ku dhibca xajaaj wuxuu yidhi waxaad ii sheegtaa caqliga bal wax iiga sheeg iimaankana wax iiga sheeg caqliga wax iiga sheeg iimaankana wax iiga sheeg xishoodka wax iiga sheeg deeqsinnimada wax iiga sheeg geesinimada wax iiga sheeg karaamada iyo sharafka wax iiga sheeg shahwada iyo qooqana wax iiga sheeg buu yidhi waad garatay soomaan wiilkeenaa wuxuu yidhi haddaan wax kaaga sheego caqliga ilaahay 10 buu u qaybiyey 9 ragga ayuu siiyey halna dumarka ayuu siiyey iimaanka ilaahay 10 buu u qaybiyey
sagaal reer Yaman baa la siiyey halna adduunka kala loo qaybiyey xishoodka ilaahay wuxuu u qaybiyay 10 sagaal dumarka ayaa la siiyey halna ragga ayaa la siiyey deeqsinimada ilaahay wuxuu u qaybiyay 10 sagaal ragga ayaa la siiyey halna dumarka ayaa la siiyey geesinimada iyo sharafka ilaahay 10 buu u qaybiyey sagaal carab baa la siiyey halna adduunka ayaa loo qaybiyey shahwada iyo qooqa iyo damcuna ilaahay 10 buu u qaybiyey sagaal dumarka ayuu siiyey halna ragga ayuu siiyey waad garata Soomaa wuxuu yiri ilaahay aqliga 10 buu u qaybiyo sagaal waxa uu siiyey ragga halna dumarka ayuu siiyey iimaanka ilaahay wuxuu u qaybiyay 10 sagaal reer Yaman baa la siiyey halna adduunyada kale ayaa loo qaybiyey xishoodka ilaahay 10 buu u qaybiyey sagaal dumarka ayuu siiyey halna ragga ayuu siiyey deeqsinimada ilaahay 10 buu u qaybiyey sagaal waxa uu siiyey ragga halna dumarka ayuu siiyey geesinimada iyo sharafka ilaahay wuxuu u qaybiyay 10 carab sagaal buu siiyey sharaf jaceelka iyo geesinimada carab sagaal buu siiyey halna waxa uu siiyey adduunka inta ka soo hartay qooqa iyo waxdoonkuna damaca ilaahay 10 buu u qaybiyo sagaalna dumarka ayuu siiyey halna ragga ayuu siiyey xajaaj markaas wuxuu yiri waxaad ii sheegtaa su'aal baan ku weydiinayaaye qofka muslimka sanadkii hal mar wax ku waajibay ii sheeg wiilku wuxuu yiri waa soonka xajaaj wuxuu yiri waxaad ii sheegtaa qofka muslimka cimrigiisa hal mar wax ku waajiba wiilku wuxuu yiri waa inuu beydka ilaahay u soo xajiyo xajaaj wuxuu yiri waxaad ii sheegtaa waxa kuugu dhow hadda adiga agtaada kuugu dhow ii sheeg wiilku wuxuu yiri aakhira ayaa ii dhow aakhiro ayaa hadda ii dhow xajaaj wuxuu yiri subxaanallah ilaahay baa xumaan ka fog buu yiri qofku doono ayuu xikmad siyaa buu yiri ma arkin buu yiri wiil adiga cilmi iyo aqli iyo maskax kuugu dhan ma arkin wiilkii yaraa wuxuu yiri waan mudanahay in la isiyo waan mudanahay inaan helo xajaaj wuxuu yiri dadka yaa u xaqnimo badan inay khaliif noqdaan qofka inuu xukumo dad xukumo yaa u xaqnimo badan oo qofka inuu dadka hogaamiyo wiilkii yaraa wuxuu yiri kan dadka markay khaldamaan iska cafiyo wanaagna ugu bedela labada qofood saysatana cadaalad u sameeyo xajaaj wuxuu yiri waxaad ii sheegtaa haweenka bal wax iiga sheeg haweenka bal wax iiga sheeg wiilkii yaraa wuxuu yiri wiil yar baan ahoo 10 jir ah haweenna weli ma aanan guursan dumarna weli ma aanan shukaansan welina lama aanan seexan oo ma aanan jeclaan maxaad iga weydiinaysaa balse haddii aad jeceshahay waxa dadka ay ku sheekaystaan meelaha ka maqmaqlay baan wax kaaga sheegayaa markaasuu wuxuu yidhi xajaajow haddaad hesho gabar 10 jir ah xuurulciin baad gacanta ku haysaa buu yidhi gabar 10 jir haddaad hayso xuurulciin ayaad gacanta ku haysaa iyosan kaa fakan waad garata soomaan xuurulciin baad gacanta ku haysaa iyosan kaa fakan 20 jir haddaad heshana muraayad iyo wax dhaldhalaalayo qurux badanood fiiriso indhahaagu qabtaan waad haysataa 30 jir haddaad heshana jannatu naciim janno iyo barwaaqaad gacanta ku dhigtay 40 jir haddaad heshana cad iyo cadiin iyo baruur baad gacanta ku haysaa 50 jir haddaad heshana wiilal iyo gabar waad heshay 60 jir haddaad aragtana 60 jir maxaad iga weydiinay oo faa'iidada kugu jirta maxay tahay buu yiri dan miyaa kugu jirto 70 jir iyo 80 jirna waa cajuuso gabowday isaga fogow ka carar 90 jirna waa shaydaane ka tag 100 jirna waa asxaabul jahiim isaga carar xajaaj intuu qoslay qosol la dhacay buu wuxuu yiri dumar teebaa u wanaagsan dumar teebaa u wanaagsan wiilkii yaraa wuxuu yiri dumar waxa u wanaagsan buu yiri tan muuqaalkeeda iyo dhismaheeda jirkeeda quruxdeeda ay ku qanciso carabkeedana uu fasiix yaho aan lahayn carab gaja iyo shigshig midna aanan ku jirin marka ay ku soo qaabisho soo socoto horteeda aad aragtanu naaska ibtiisa u nuuxnuuxso dhag u dhaho markay sii jeesatana barida ay gadaal u sii ruxanto xajaaj wuxuu ku yiri waxaad ii sheegtaa buu yiri qofkii ugu horeeyay ee shicir tiriya adduunyada inta la joogay ii sheeg wiilkii yaraa wuxuu yiri aadam calayhi salaam buu ahaa ruuxii ugu horeeyay ee shicir tiriyay wuxuuna tiriyay wiilkii qaabiil markii uu dilay walaalkii haabiil uu dilay ayuu nabi aadam isagoo baroor diiqanayo shicirkan tiriyay oo wuxuu yiri bakat caynii ishaydii way ooysay وحق لها بكاها إني أيسن حق بي أولادهي ودمع العين إشا إلنتيذا منهمل يصيح ويدريريسا وحدريري وي فما لي محائق دعو لا أجود أنا أقود يقين ويلكيغا بسكب دمع إلن إنان أقول قولي وهابيل ويلكي هابيل أهانا
tadammanahu dariixu dhulka hoostiisa iga maray ramaa qaabiil waxa uu riday uu ku tuuray dhagax haabiilan akhaahu walaalkiisi haabiil ahaa ayuu dhagax ku dilay waalxaddu fi thara alwajhu asabiixu wuxuu yidhi xadkuna sida muuqato wejhigii ifayey wuu aasmay tagayarat ilbilaadu ifkoo dhan wuu isbeddelay tagayarat ilbilaadu ifkoo dhan iyo adduunkoo dhan wuu isbeddelay waman calayhaa iyo wixii ku dul nool fa wajhu اlardi dhulka dushiisa muqbarun kashiixun waa ku isbeddelayoo midabkiisa doorsoomay tabaddala kullu dii طacmin wa lownin mid walboo dhadhan lahaa midab lahaa wuu isbeddelay lifaqdika weynta aan ku waayey yaa sabiixu yaa maliixu kii wanaagsanaa aan jeclaayow ayaa haabiilow in taqtul haddaad dishay walaalkaa in tuqtal dheh haabiilow haddii lagu dilay fa innii calayka addahru mukta'ibun qariixu inta aan noolahay waan kuu tiiraanyoonayaa oo adiga ayaan kuu walwalayaa sidaa ayuu nebi aadam ku calaacalay fa anta xayaatu man fi اlardi jamiican inta dunida ku nool noloshooda waa adiga waqad faqaduuka yaa ruuxu wariixu kii carfayoo wanaagsanaayo way ku waayeen wa anta rajiixu qadrin yaa fasiixu waxaa tahay ruux la waayey oo loo baahnaa saliimun bal samiixun bal sabiixun waxaa tahay ruux magangelyo iyo badbaado ku jiray bal cafin badan baad ahayd bal ruux wanaagsan baad ahayd walasta mayitan ma tihid ruux geeriyooday bal anta xayun waad nooshahay buu yidhi wa qaabiilu shaqiyu doqonkii ku dilay gacanta kula tegey huwa ariixu kan dhintay maanta adduunyada waa isaga calayhi sakhtu min rabbi albaraayaa caradii ilaahay dushiisa ha ku dhacdo wa anta calayka tasliimun sariixun badbaado iyo nabadgelyo dushaada ha ahaato sidaa ayuu ku calaacalay nebi aadam wiilkiisa marka la dilay markuu calaacalay kadib baa shicirkii labaadoo jawaabta waxaa u tiriyey ibliis oo meel ka dhow nebi aadam taaganaa baroordiiqiisana maqlayey wuxuu yidhi tanuuxu waad qaylinaysaa cala albilaadi magaalooyinka ayaad ku qaylinaysaa waman calayha iyo ciddi dul saaran baad u qaylinaysaa wa fi lfirdowsi jannadiina qad daaqa bika alfasiixu ciriiri kugu soo noqotay jannaduna ciriiri bay kugu soo noqoto adii ilmahaagoo janno ku jiro ayaad ku soo noolaan weysay wa kunta bihaa janno ayaad ku noolayd firdowso wasawjika iyo wiilkaaga iyo wasawjika xaaskaaga fii naciimin barwaaqo ayaad ku sugnaadeen min almawlaa allaha idin abuurta uu idin siiyey wa qalbuka mustariixun qalbigaagana wuxuu ahaa qalbi raaxaysanaya khadactuka aniga ayaa ku khayaamay fii dahaa'ii maskaxdaydii ayaan kugu khayaamay uma makrii dhagartayda beenta aheedun kugu dhaartay baan kugu khayaamay ilaa an faataka alcayshu arashiixu noloshii barwaaqada badneed ee jannada ilaa ay kaa soo gudubtay faqaala xajaaj wuxuu yidhi marka ii sheeg buu yidhi wiil yahow carab shicir ay tirisay midka ugu qiimaha badan ii sheeg wiilkii yaraa wuxuu yidhi shicirkii uu tiriyey xaatimu taa'i ayuu ahaa markii uu yidhi wa ukrimu dayfa waxaan karaamaynayaa martida xatman qasab iyo dirqin anigoo ay igu tahay xiina yatruqunii markuu ii soo garaaco albaabka qabla alciyaali intaanan carruurtayda siinin waxa ay u baahan yihiin calaa cusrin haddii faqri uu yahayo wa iisaarin iyo haddaan dhaqaalo haystaa intuba ilmahayga waxaan ka hormarinayaa martida albaabka ii soo garaacdo ninkii yidhi shicirkii uu tiriyey ayaa ugu qiimo badan shicir la tiriyo xajaaj wuxuu yidhi wiil yahow waad mahadsan tahay waadna wanaajisay cilmigaagii faraha badnaana waad nagu deeqday ee waxaa qasab ah annaguna inaan ku karaamayno waxaan ku siinayaa buu yidhi 1,000 diinaar waxaan ku siinayaa dhar qurxoon waxaan ku siinayaa gabar waxaan ku siinayaa seef waxaan ku siinayaa faras xajaaj markaasuu si hoose intuu isula hadlay wuxuu yidhi wiilkan hadduu qaato faraska waan dilayaa maya hadduu faraska qaato wuu iga badbaaday inta kale laakiin hadduu qaato waan dilayaa sidaa ayuu xajaaj isu yidhi wiilkii buu arrintii u sheegay arrintii baa la keenay waxaa la keenay lacagtii 1,000 diinaar ahayd iyo maradii qurxoonayd iyo gabadhii iyo seeftii iyo faraskii baa la keenay markaasuu xajaaj wuxuu yidhi wiil yahow waxaa doonta ka dooqo wiilkii intuu islahaa keed qaadataa baa gabadhii addoontii ahaydoo wiilka la siinayo ku jirta wixii la qaybinayey baa intay wiilka u iljibisay bay waxay ku tidhi aniga i qaado waxaan odhan anaa kaaga fiican lacag maxay kuu taraysaa faras muxuu kuu tarayaa seef maxay tartaa
mara qurxoon maxay sheegtaa aniga ayaa kaaga fiican aniga i qaado intay wiilka u yara iljibisay markaasuu wiilkii wuxuu yidhi dan kaamalihi buu yidhi dan kaamalihi markaasuu shicir yar u tiri wuxuu yidhi lijaankan iyo madaxan guduudan ee ruxmayo faraskii buu ula jeedaa ayaan ka jeclahay waxa aad iigu iljibinayso inaan adiga ku qaato ah waxaan ka baqayaa buu yidhi haddaan firaashkii gogasha ku duldhacoon xanuunsado cilladii iyo jiradaydana ay dheeraato inaadan ila sii joogin waxaan ka baqayaa haddaan meel haadaan ka dhacno zamankuna uu i beddelo inaadan ii gargaarin jiis iyo wax haddaan noqdo inaadan ii gargaarin waxaan ka baqayaa haddaad lacagta yaroon haystood iga weyso in aad dadka lacagta lahoo cadowgayga ah iga raacdo gabadhii baa u jawaabtay waxay tidhi ilaahay baa xumaan ka fog bay tidhi waxaad i tidhaahdaa ayaan samaynayaa haddaad gacantayda bidixda goyso midigtaydana aad goyso sirta ninkayga qalbigayga ayaan ku qarinayaa waxaan ku qancayaa wixii yar uu ii keeno iyo wixii badanba haddaad ila noolaato dabcigayga waad garan doontaa waxaad ogaan doontaa ruux lala noolaada kan ugu khayr badan inaan aniga ahay ayaad ogaan doontaa waa garsooma xajaaj wuxuu yidhi marka gabadhii buu arko gabay tirinayso wiilka u iljibinayso hoogto ma xishootid miyaa wiilka intaad u iljibisay baad weli shicir ugu jawaabaysaa miyaa wiilkii yaraabaa marka intuu hadlay wuxuu yidhi xajaajow waxaad ii keentay buu yidhi faras 1,000 diinaar mara qurxoon gabar seef haddaad khiyaar isiisood itiraada keed qaadan lahayd faraskaan qaadanayaa buu yidhi aniga haddaad khiyaar isiiso faraska ayaan qaadanayaa waa faraskii la yidhi hadduu qaato wuu ku badbaadayaa faraska ayaan qaadanayaa ayuu yidhi haddaad khiyaar isiiso adiga laakiin haddaad xalaal tahay oo dhiig xalaal iyo dhacaan xalaala aad ka dhalatay kulli baad isiinaysaa xajaaj wuxuu yidhi qaado ilaahay kuuma barakeeye qaado kulligooda ilaahay kuuma barakeeye wiilkii yaraa wuxuu yidhi waan kaa gadoomay buu yidhi adigana ilaahay wax ka dambeeya intaad isiisay kuma siiyo adigana mar dambe ilaahay nama kulmiyo wiilkii yaraa markii isku qaatay faraskii 1,000 diinaar maradii seeftii gabadhii markuu isku qaatay buu wuxuu yidhi xajaajow xaggeen ka baxaa xajaaj gurigiisa albaabo badan buu lahaa irdaha qaar markii laga baxo qofka madaxa laga gooyaa qaar qofka gacmaha laga gooyaa qaar qofka xabsi baa la dhigaa qaar qofka waa la karaameeyaa xaggeen ka baxaa buu yidhi xajaajow xajaaj wuxuu ku yidhi albaabkaas ka bax buu yidhi haddaad ka baxdo waad ku badbaadaysaaye dadkii meesha fadhiya waxay ku yidhaahdeen wiilkan sidan kula hadlay ad adeegan carabta aysan qabin kula hadlay hadalladan jawaabahan xunxunka ku siiyey albaabka uu ku badbaadi lahaa uu ka bixi lahaa maxaad ugu tilmaantay hal la dilay maa albaabka lagu dili lahaa u tilmaantid xajaaj wuxuu yidhi hadduu iska bixi lahaa albaab xun ka bixi lahaa ma aanan celiyeen laakiin wuu ila tashaday buu yidhi xaggeen ka baxaa ayuu yidhi qofka haddii lala tashadana waa inuu aamin noqdaa qof lala tashaday waa qof la aaminay wiilkii yaraa wuxuu ka baxay albaabkii buu ka baxay isagoon waxba la gaarsiinin gabadhii faraskii 1,000 diinaar maradii qurxooneed seeftii intiiba isla qaatay buu ka baxay ilaahayna uu ku badbaadiyey qisadeennii intaa ayay ku soo dhammaatay